maanta marka waxaan rabaa inaan buugga ka soo qaadano xalaqada labaad sida qofka qaladkiisa loogu sheego annagoo ilaalinayna xiriirka nagala dhexeeyo annagoo oo aanan qofka dareensiinin in uu qalad ku dhacay sideen ugu sheegi karnaa wixii saxan oo aan anaga inay saxan yihiin aan arag laakiin walaalayaal waxaa dhab oo xaqiiqo ah oo runtu waa inaan isku sheegno mogtahay ardayba wuxuu keenay darajooyinkii oo dhan wuu hooseeya maadooyinka waxaad ku ammaanta ma jiraan marka arrintii horeeto meeshay ka baxaysaa soo maha seen qaladkiisa qofka ugu sheegaya weeyaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ولا ليال صاحب يال سو دواada markale walaalkan Cabdulle Khaliif waxaan isla wadnay buug xalaqadii horena aan ku soo bandhignay buugan la yiraahdo How to Win Friends and Influence People oo qoray Mareykan oo la yiraahdo Dale Carnegie buuga waxa turjumay in la yiraahdo Abdiraxmaan Xuseen Abu Hamza waxa uu u bixiyay saaxiibo kasba sida muuqaalka hore ku sheegay muuqaalka hore waxaan sheegay walaalayaal in dadka bini aadamka xiriirkooda waxyaabaha burburiyo isla markaana calaaqaadka xumeeyo ay ugu weyn tahay in qofka la dhaleeceeyo la eedeeyo dhaleelihiisana loo tilmaamo maanta dhan arrintaas aad ayuu qoraaga uga digay muuqaalka hore ayaan uga faahfaahinay si fiican dhinacan ayuu kasoo baxay ood ka daawan kartaa haddii aadan weli daawanin muuqaalkaas maanta marka waxaan rabaa inaan buugga ka soo qaadano xalaqada labaad sida qofka qaladkiisa loogu sheego annagoo ilaalinayna xiriirka nagala dhexeeyo annagoo oo aanan qofka dareensiinin in uu qalad ku dhacay sideen ugu sheegi karnaa wixii saxan oo aan anaga inay saxan yihiin aan arag qoraaga buugga walaalayaal waxa uu leeyahay waxaad awoodaa qof inaad saacadiisa ka furato haddaad bistoolad madaxa ka saarto laakiin taas wax fiican ma aha sidoo kale waxaad awoodaa inaad ku khasabto inuu amarkaaga qaato qofka kaa hoos shaqeynayo inta adoo dul taagan laakiin markaad ka tagto waxaa weeyaan taas ma awoodid sidaas oo kale ilmahaaga intaad dul taagantahay waxaad awoodaa waxaad rabta inay sameeyaan isla markaana saad rabta ay u dhaqmaan laakiin markaad ka tagto taa ma awoodid haddaba sideen ku heli karnaa inay dadka qaladaadka iska daayaan isla markaana wixii saxan ay u qaataan isla markaana ay dhaliishanada ama qalad sheegideenna ay u soo dhaweyn karaan kow waxa uu leeyahay qoraagu arrinta koowaad ee tahay inaad ku dadaasho waxa weeyaan inaad qofka ammaanto intaadan qaladkiisa u sheegin ammaan marka hore ku bilow ammaantaas waa inay tahay ammaan qalbiga ka timid waa inay tahay ammaan dhab ah oo run ah oo uu qofka leeyahay waa inaysan noqonin mid mujaamalo ah ama mid duur xul ah ama mid aad ku qarinayso dhaleecaynta iyo qalad sheegidda aad soo wado tusaale ahaan arday baad rabtaa inaad ku dhiirigeliso inuu maado xoogga saaro waxaadna ku tiri maadooyinka dhan waad ku fiican tahay darajo fiicanna waad ka keentay laakiin maadadan ayaa darajadeeda ku hooseysaa maxaa dhacay ardaygaas waa adag tahay inuu su-aashaas kaaga jawaabo haddii aad ku dhahdo ama aad u raacayso maadadaanita ku dadaalna inuu kaa qaato waa adag tahay sababtoo ah ammaantaadii horeeto wax qiimo ay leedahay ma lahan waxaad ka dambaysiisay inaad qaladkiisa u sheegto ama boogtiisii ayaa taabatay maxaa taa ka fiican taa waxa ka fiican intaan sheegin aan tusaale kale isla fiirino qof baa shaqo kuu keenay waxaadna ku tiri shaqadan way fiican tahay oo shaqo fiican baad qabatay laakiin waxa weeyaan waxaan iyo waxaan soo hagaajiso qaladkaana soo sax qofkaas waxaa laga yaabaa inuu dhibsado hadalkaagaas laakiin haddii aan hadda u imaano bal ila fiiri tusaalahaas haddaan bedelno oo aan u bedelno qaab qofka aan u tilmaamayno waxa saxda in la sameeyo ay tahay haddii aan ardayga ku iraahdo maadooyinka darajooyin fiican ayaad ka keentay dhammaantood marka soo socotana haddii ilaahay idmo waxaad darajo sare ka keeni doontaa dhammaantood oo ay ku jirto maadadan oo hadda darajadaada ay hooseyso meeshan ardayga waxaad u tilmaantay in uu marka soo socdo dadaalo mustaqbalka ayaad kala hadasha waxaadna u sheegtay meesha ay tahay u gaabis ka jiro adigoo ammaanna ka hormariyay taas aqbalideeda way ka wanaagsan tahay markii aad laakiin darajadaada hooseysay tan meesha aad ku dhehi lahayd nin doctor ah wuxuu leeyahay waalid iyo wiilkiisi waalid arday aan macallin u ahaa iyo waalidkiis baan la fadhiyay yiri dadna imtixaankii waa la furay darajadii baa maaragtay soo degtay darajadii baa la fiiriyay ardayga wuxuu keenay 97 waalidku wuxuu yiri 3 darajo xageed
waalidka ma fiirinin buu yiri 97 ardayga uu keenay ee kaliya 3 bas uu fiiriyay meeshii ay ahayd inuu ardaygaas u dhiirigeliyo oo uu amaano oo uu 97 fiiriyay kaliya 3 boqolkiiba ayuu fiiriyay ardayga uu lumiyay taa marka lama rabo qaladka adiga ha ku hormarina bal dhinaca weelka inta buuxda fiiri marka hore taa adi naftiska waxay ka khafiifinaysaa inaad maaragtay qaladka ama gaabiska jiro aad aqbasho arrinta shaqada haddaan u imaan walaalayaal meeshii aad qofka ku dhihi lahayd qaladkan iyo qaladkan shaqada ku jira waxaa ka fiican inaad dhahdo shaqadaada si fiican baad u qabatay wayna wanaagsan tahay ka waran haddii meeshan iyo meeshan aad dib u eegto waxaan hubaa si ka fiican sidan aad u qabatay inaad u qaban karto meeshan qofkan qaladkiisii baad ammaan ooga dhigtay waxaadna ku tiri waxaadna ku ilzaamisay inuu heerka uu joogo shaqada uu qabtay heer ka sarreyso uu awood u leeyahay inuu qabto taa qofka asagoo raba inuu ku raali geliyo oo uu sara mariyo shaqadiisii ayuu shaqadii ku laabanayaa dibna u soo saxaya laakiin walaalayaal waxaa dhab oo xaqiiqo ah oo runtu waa inaan isku sheegno mogtahay ardayba wuxuu keenay darajooyinkii oo dhan wuu hooseeya maadooyinka waxaad ku ammaanta ma jiraan marka arrintii horeeto meeshay ka baxaysaa soo maha seen qaladkiisa qofka uu sheegaya weeyaan meeshan qoraag waxa uu leeyahay qofka waa inaad damiirkiisa la hadasho markaas damiirkiisa seed oo la hadlaysaa waxa aad leedahay waan ogahay nin karti iyo caqli badan baa tahay waadna awooddaa wax ka sarreeyay waxaan aad keento inaad keento marka soo socota dadaal iskuna day inaad maaragtay ka sara marto meesha maanta aad joogto qofkii waad u sheegtay qaladkiisa laakiin waxaad la hadashay damiirkiisa wuxuu ku wanaagsan yahay la hadashay wuxuu leeyahay marka qofka haddii uu xun yahay tusaale kale qof baa tuug ah qof baa beenaale ah inaad beentaas ka waanisaad rabtaa waxaad u tilmaamaysaa in uu yahay qof aaminsan inay beenta xun tahay isla markaana uu yahay qof mu'min ah isla markaasna qof ilaahay ka cabsanaya uu yahay taasna ay tahay inay ku riixdo inuu iska daayo waxyaabaa qaladkii uu sameynayo marka waxa uu leeyahay aan dadka damiirkooda la hadalna meeshii si qayaxan aan u dhihi lahayn inay beelaha la tahay waa laga fiican yahay kaama qaadanayo qofka meeshan qoraaga waxa uu tusaale usoo qaadanayaa sheeko isaga ku dhacday oo wuxuu leeyahay hotel baan kiraysan jiray howl baan ka kiraysan jiray howlkana waxaan ku qaban jiray dowraad buuggan uu qoray qoraaga waa buug training ama tababaro uu sameyn jiray oo barnaamijkan dadka isdhexgalkooda la xiriiro uu ka sameyn jiray ayuu ka qoray marka intaanan buugga uu soo bixin buu ka hadlayaa hotelkii marka waxa uu yidhi waxa ay timid dowraan rab inaan qabto ama tababarkii waan iclaamiyo dadkii waan u diray emailadii iyo wixii iyo aan maaragta samayn lahaa faxyadii ooga fax baa la isticmaali jiray email xataa ma jirin dadna waxaa dhacday yidhi in nin maaragtay u yimid wargelin hotel ka timid oo ah in lacagtii la igu badiyey 3 jibbaar ama 300 boqolkiiba yani meesha tusaale ahaan ahayd 1000 waxaa laga yiri waxaa laga rabaa $3,000 deedna waan fikiru yidhi waxaan yidhi waxaad dhaqan gelisaa wixii aad maaragtay aad dadka u sheegaysay sidaas waxaan sameeyay yidhi inaan maaragtay aan imid qolada hotelka ninkii lahaa maamulka ayaan imid buu leeyahay waxaan ku eri buu yidhi niyahow inaad lacagta iga dhintaan ayaan doonayaa dadna warqadii qalin baan soo qaatuu yidhi waxaan u qoray dhammaan list wixii maaragtay aan u arkay inay khasaaro ugu jirto hotelka iyo wixii faa'iido ugu jirto faa'iido waxaa eri buu yidhi lacag badan baad heli kartaa hotelka howlka waxaa idinka kiraysan karaa dad oo maaragtay ama tumasho ama maaragtay baar bay dadka dhigan karaan lacag badan waa idinsiin karaan buu yidhi laakiin dhinaca kale waxaad khasaraysaa waxaa ka mid ah yidhi sumcaddiin hotel sumcad lahaatiin laakiin sumcaddiisa meesha ka baxaysaa saasoo kaleeto aniga dad ugu maaragtay bulshada ka tilmaaman ee aqoon-yahanadii ay ugu xiran buu yidhi dadkaasaytuu yidhi hotelkiina imaanayaan magac fiican buu u yeelayaa inay laydinka kiraysto idinka kiraystaan baa imaanaysuu yidhi oo already wayba dhacdaa taas marka bal isbarbardhiga khasaarahaasi waxyaaba badan oo uu sheegu yidhi khasaarahaasi faa'iidadaas isbarbardhiga bal lacagtan aad waxay dhimi kartaan aad ii sheegteen igu soo warceliyaan ku eri buu yidhi waana ka tegey ninka marka hawsha mas-uulka ka ahaa baan arrintaas kala hadluu yidhi dadna waa isaga tegey markaan soo laabtay markaan muddo jooga dhowr beri bay soo wargeliyeen buu yidhi in meeshii 300 boqolkiiba laygu dallacay lacagta in 50 boqolkiiba keliya laygu dallacay macnaa meeshii 3,000 aan bixin lahaa in 1,500 bas laga rabo bay soo wargeliyeen buu yidhi lacagtana sida layga dhibay meesha marka qoraagu wuxuu ka hadlayaa dadka waa inaad la hadasho dhinacooda wanaagsan iyo damiirkooda ee aadan la hadan qaladka aadan si qayaxan u sheegin arrinta saddexaad walaalayaal oo qoraagu soo bandhigayo markii damiirka lala hadla iyo qofku la amaano laga tago waxa weeyaan
in aadan marnaba dhaliil ka dabageynin ammaan aad qofka u jeedis. Ammaantaasaan hore u sheegnay bilowgiiba ha ahaato ammaan aysan biyuur ah oo dhab ah oo qofka tusaale kale qofka wax uusan asaga maaragtay ku ammaanin ha ku ammaanin. taas qofka uu fahmaa dadka caqli bay leeyihiin garaad bay leeyihiin dadka saad wax u fahmaysa wax u fahmaya marka taa waa arrinta saddexaad. ugu dambeyntii walaalayaal muuqaalka waxaan rabaa inaan kusoo gabeeyo laba qodob oo buugga aanan ku jirin laakiin ani aan isleeyahay nolosha wax badan baa maaragtay qofka u kordhaya haddii uu sameeyo dadkuna warkiisa way qaadanayaan. mid waxa weeyaan arrin aan ka bartay adeerka Sheekh Xaaji Yuusuf ilaahay ha u naxariisto qabrigiisana ha u waasiyo hana u nuuriyo. arrintaas waxa weeyaan qofka markii waanadaada ay yar tahay oo xilliyo kooban aad qofka wax u sheegto horta wuxuu kaa qaadan xataa qaladka ha qayaxnada hadduu rabe. tusaale kale waxaan xasuustaa waagaan yaraa dhalinyarada ahaa la noolaa inuu maaragtay waxyaabaha qaar oo qaladaad uu igu arko uusan igala hadli jirin marna igalama hadli jirin. marka waxaa laga yaabaa in 3 bilood 4 bilood intay kasoo wareegato maalin uu ii yeero uu dhaho war Cabdi Weli waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaas oo qalad aan kugu arkay iska daa kuma fiicne. marka waxaan ku khasbanaan jiray si aan asaga u raali geliyo inaan maaragtay iska daayo waxa ay isaga sababtoo ah qofka markuusan qalad kasta dul istaagaynin oo uusan kugu qabanaynin way fududaanaysaa inaad warkiisa qaadato sababtoo waxaad ogtahay qofkan inuu ku qiimeynayo ku qadarinayo inaad waa dareemaysa. marka dadka inta badan qaladaadka dadka isdul taagay ee maaragtay maanta dhan qalad wuxuu leeyahay dadkan waxa uma qarin wax walba waa aragtay wajigan ka saara taas sax maaha waxay laga fiicay aad baa looga fiicay runtii qofka waxba kaama qaadanayo. ilmaha waalidka ka mid ah sidoo kale waalidka waxaa ku badan inta badan in ilmaha maanta dhan wax kasta wax yar iyo wax weyn bay ku haystaan lidaalika waxaad canug marka uu soo qaangaaro waxaa adkaanaysa in waalidkiis fahmaan sababtoo asagana wuxuu dareemay raganimo ama gabadhina waxay dareentay inay maaragtay qof dumar noqotay marka waxaa imaanayso conflict ya imaanaya iska hor imaad aan caadihin baa imaanaya waalidka gaab badan baa dhex maraya. waxaa laga yaabaa in maaragtay waxa la isugu yimaado rasmiyad bas ay noqotay calaaqad saaxiibtinimo iyo calaaqa isu dhow waalid iyo walaal waalid iyo wiil ama waalid iyo gabar ay meesha ka baxdo. marka arrintaas waa arrinta aan rabo inaan idinku dhiirigeliyo in maaragtay qofka aadan noqonin qof wax walba dul istaag ee aad noqoto qof dadka marmar dhif ah u sheegay qaladkooda waana maanada badan maaragtay dadka way dhibtaa ama way ka didaan. taas waa midda labaad waxa weeyaan oo ayadana muhiimka waxa weeyaan inaad ogaato qofkan waxa ku riixayo inuu qaladka sameeyo. taa waxay ka qayb qaadan kartaa in qofka qaladkiisa uu sameynayo la daaweeyo. tusaale kale ilmaha markay waalidka been bay inta badan sheegaan beentana way bartaan maxay u bartaan sababtoo ah waalidka hadday runta u sheegaan waalidku ciqaaba marka ciqaabtaas si ay oga gaashaantaan waxay sameeyaan inay waalidka aysan runta u sheegin. marka maxaa taas uga hortegi kartaa waxaad uga hortegi kartaa inaad ilmaha dhahdo runta ii sheegto waan ku cafinayaa qaladkan bini'aadanka uu ka dhaca iskana daa qaladkaas. laakiin haddii aan ogaado in cid kaleeto aan ka ogaado inaad qaladkaas aad samaysay waxa weeyaan waa ciqaabantahay waa ku ciqaabayaan. taa waxay keenaysaa ilmaha inuu runlow noqdo isla markaana uu run ku barbaaro oo uu noqdo qof run sheegay. taas aad bay muhiim u tahay runtii waalidka ilmaha saxda ee soo saarana waa waalidka ilmahooda sida oo la dhaqmo laakiin ilmaha inuu been kugu raali geliyo adigana aad ka raali noqoto taas wax sax maaha. inta kalena wax kasta oo qalad oo ilmaha uu sameeyo in lagu ciqaabo maaha mararka qaar waxaa ku filan in maaragtay hadal yar aad dhahdo ama aadba iska indhatirto magarat oo mar sida hadda sheegayay qodobka ka horreeyay inaad u aruuriso hal mar intaad u yeerto aad waxyaabo badan aad kala hadasho waxyaabahaas iska daa kuma fiicno adiladii iyo nusuustii iyo maaragtay wixii maaragtay wanaagsanaan aad u tilmaanto. walaalayaal muuqaalkan waxaan rajeynaya inaad waxun ka faa'iideen tan iyo intaan muuqaalka xigo ee buugga xalaqada saddexda aan ku kulmayno waa walaalkin Cabdi Weli Khaliif oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum.